maaha kaliya lacag la xado musuqmaasuqa waa qofka positionka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah isagoon ilaahay ka baqaynin isagoo mas'uuliyadda loo dhiibay aan tixgelinayn waa xaqiiqa Soomaaliya waxa lagu tiriyaa inay tahay wadanka ugu musuqmaasuqa badan taasoo ay keentay dhibaatooyinka dalka ragaadsaday dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay iyadoo aysan jirin awoodda dawladda dhexe iyo colaadaha xasilooni darrada jirta awgeed ayaa sahashay in musuqmaasuqu uu si fudud ugu baaho bulshada Soomaaliyeed. Soomaaliya ayaa kaalinta koowaad ka gashay dalalka ugu musuqmaasuqa badan caalamka sida ay sheegtay hay'adda Transparency International. Soomaaliya waxay si joogto ah u gashaa kaalinta ugu hooseysa liiska sanadihii ugu dambeeyay iyadoo sanadkan heshay iskoor ah 9%. Haddaba arrimaha ugu waaweyn ee keena musuqmaasuqa ka jira Soomaaliya waxaa ka mid ah dawlad la'aanta iyo sharciga oo aan lagu dhaqmin. Dalku ma lahayn dawlad dhexe oo shaqaysa tan iyo 1991 xilligaasi oo ay burburtay dawladdii madaxweyne Siyaad Barre kadib dagaaladii sokeeye. Taasi waxay keentay in ay meesha ka baxaan awood maamul taasoo ay buuxiyeen beddelkeeda hogaamiye kooxeedyo iyo maleeshiyaad kala duwan oo mid walba danihiisa wato. Arrinta kale ee qaybta weyn ka qaadatay musuqmaasuqa Soomaaliya ka jira ayaa ah daahfurnaan la'aanta iyo isla xisaabtanka oo aan jirin. Waxaa meesha ka maqan kormeer iyo xeerar wax ku ool ah. Taa waxaa dheer in ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda iyo ganacsatada ayaa ku shaqaysta si aan daahfurnaan lahayn. Taasi waxay sahlaysaa in dhaqamada musuqmaasuqa aan la ogaan oo isla markaana ay adkaato in la hubiyo. Sidoo kale waxaa caadi ka noqotay Soomaaliya iibsiga kuraasta doorashooyinka ka bilow odayaal dhaqameedka ka gata xildhibaanada kuraasta qabiiladooda iyo xildhibaanka gata codkiisa. Haddaba sidaa darteed dawladda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ku timid musuqmaasuq taasoo ay qasab ku tahay siyaasiga ku bixiyay malaayiinta dollar kursiga uu ku fadhiyo inuu ku kaco musuqmaasuq. Waxaa jiray dadaallo lagula dagaalamaya musuqmaasuqa ka jira Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda aan lagu guuleysan. Dawladdii hore ayaa samaysay dadaallo lagula dagaalamaya musuqmaasuqa sida in ay samayso guddi qaran oo la dagaalama musuqmaasuqa iyo samaynta shuruucda la dagaalankooda. Si kastaba ha ahaatee dadaaladaasi ayaa intooda badan noqday kuwa aanan wax natiijo ah ka soo bixin sababtoo ah dawladda hadda xilka haysa ayaa kala dirtay labadii guddi ee qaran ee ugu muhiimsanaa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo guddiga horumarinta dhaqaalaha qaranka taasoo inta badan dadka ku macneeyeen kala dirkooda in ay tahay banaysiga hantida dadweynaha iyo musuqmaasuq ay doonayso dawladda inay ku kacdo. Haddaba si loola dagaalamo musuqmaasuqa ka jira Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in si wadajir ah looga shaqeeyo xoojinta dawladnimada iyo sareynta sharciga. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay in la sameeyo kormeer iyo nidaamyo wax ku ool ah, kordhinta hufnaanta iyo isla xisaabtanka iyo wax ka qabashada sababaha keena musuqmaasuqa sida colaadaha iyo xasilooni darrada iyo sidoo kale ka wacyigelinta bulshada dhibaatooyinka uu leeyahay musuqmaasuqa. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena. waad ku mahadsantahay dhageysigaaga. sii faafi barnaamijkeena adigoo ku sheergaraynaya asxaabtada baraha bulshada. magacaygu waa Ismaaciil Kulmiye, aniga iyo bahda wargeyska maalinlaha Jubba waxaan idin leenahay musuqmaasuqu waa dilaaga mustaqbalka jooga iyo kan soo socda. sidaa darteed dhammaanteen aanu ka fogaano nabadgelyo.